sababtoo ah afur isku dheelitiran waa inaad heshaa. jirkaan maanta inuu soo baahnaa wuxuu u baahan yahay wax isla markii markaa galo, yani tusaale ahaan aan adkayn. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Welcome back to my YouTube channel again. farxada ay tahay mar kale idin kasoo muuqdo. soo dhawaada saaxiibayaal, meel baa joogtaan, walaalkiin saaxiibkiin Shucayb back. fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar, haddii aad hore u joogtayna soo dhawo. maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay, maanta muuqaalkeena waxa uu yahay jimka iyo afurka. dad badan ay isaga dhaxyaasan tahay sidii ay afur lahaayeen ayagoo jirkooda uusan wax dhibaato soo gaarin, ama se iyagoo trainingkooda wata sidii ay afur lahaayeen, cunto nadiif ah ay ku heli lahaayeen. laakiin waxaan rabaa inaan idin la wadaago tipska aniga isticmaalo, yani sida anigu afuro iyo waxyaabaha aan isticmaalo iyo waqtiyada aan u kala qiimeeyo iyo exercise-ka sidaan isugu dhex qariyo ayaan rabaa inaan idin soo gudbiyo haddii Ilaahay yiraahdo. khaasatan waqtigan hadda lagu jiro oo waqti ay waxa dhan xaniban yihiin, yani gym uusan jirin, laakiin badanaa dadka ay ku exercise gareyn karaan xaafadahooda. afurkiina iyo exercise-kiina marka waxa badan isqabanayna jira. waxaan rabaa inaan idin kala saaro haddii Ilaahay yiraahdo. muhiimadda koobaad waxay tahay marka afuraysid inaanad ku afurin cunto culus. cunto culus ha ku afurin, sababtoo ah haddii aad cunto culus ku afurtid waxaa dhacayo inaad ka caajistid inaad exercise samaysid. يعني انت اي ka baxaysana ay saacado badan kugu qaato, marka laga yaabo inaad hurdid ama casho badan cunin, marka jirkaagiina wax fiican aadan siin. muhiimadda koowaad waxay tahay inaad ku afurtid wax fudud. tusaale ahaan gibi ahaanba ha ku afurin sambuuska. waa aniga taladeyda, waana talo dad badan oo yani xagga caafimaadka ah ay kula talinayaan dadka inaysan ku afurin sambuuska. sababtoo ah sambuuska waxaa lagu sameeyaa saliid badan, xoogaa sigoo bur waxay ayaa saliid hadan lagu sii sameeyaa oo yani saliid badan la xagiliyaa. basal iyo waxba ku sii jiro, hilib yar uu ku jira soo maleynaayo, ma sida saxda ah. marka yani maba ahan bal cunto loogu talagalay qof maanta oo dhan soo baahnaa inuu ku bilaabo. saawgeed ha ku bilaabin sambuuska. haddii sambuuska cunaysid oo yani jeceshahay dib u dhigo, laakiin marka koow afuraysid ha ku afurin wax la yiraahdo sambuus. waa aniga Shucayb waxaan sameeyay ka hadlayo. ani markaan afurayo waxaan ku afuraa mishaari iyo protein. proteinka waliba nooca oo golden standard ah, noocan ayaan ku afuraa. noocan aad iyo aad u muhiim u yahay. adigana waa ku muhiim marka afuraysid inaad protein haysatid. haddii aad protein quality fiican loo baahan tihiin waxaad ka iibsan kartaan oo Soomaaliya ay joogtaan. shirkadda Fast Grow ayaa keento oo shirkadda kaliya soo gelisa wadanka protein quality fiican leh. walibana waxa ay member ka yihiin ama yani ay ka diiwaan gashan yihiin, waliba waxa ay ka diiwaan gashan yihiin company-ga Optimum Nutrition oo soo saaro proteinadan xaggan think inuu ku yaalo USA. waana company-ga kaliya proteinkiisa 100% la hubo marka timaado xagga caalamka. marka shirkadaas ayaa soo gelisa wadankii. haddii aad u baahan tihiin wixii information intaas dheer, linkiga hoose website-kooda aad booqan kartaa ama taleefanada ka muuqda shaashada ayaad kala xiriiri kartaa. aan u sii gudbin marka muuqaalkeena. muhiimaddu waa inaanad ku afurin sidaan kuu sheegay sambuus. haddaa sambuus ku afurtid ama canjeere iyo maraq haddaa ku afurtid, maalintaas dhan way qaldan tahay. waana sida saxda ma exercise garay kartid. haddaa exercise garaysidna laabdilaac ayaa kugu dhacaya marka inaad exercise samayn karin, in yani caafimaadkaaga cunto caafimaad la kuma afurin. marka koow ha ku afurin sambuus iyo canjeere iyo maraq. ku afur mishaari iyo protein. waa tan ugu fiican. ama bedelkeeda ukun iyo xoogaa yaro avocado iyo khudaar ku afur. intaas waa muhiim, sababtoo ah afur isku dheelitiran waa inaad heshaa. jirkaan maanta inuu soo baahnaa wuxuu u baahan yahay wax isla markii markaa galo, yani tusaale ahaan aan adkayn. يعني waxaan ka wadaa hilib iyo waxyaabaha sooyinka ma aha, cunto yar oo fudud jirkiisa dhaqsaa ku gasho, proteinkeeda leh, vitaminkeeda leh, mineralskeeda wadato. intaba haddii aadan haynin jirkaaga markaa waxa ku dhacayo in uu wareero oo markaa uu awoodna u lahaa waayo inuu exercise sameeyo, caafimaadkiisa uusan u wanaagsanayn. marka haddii hore u afuraysay xoogaa ku soo dhaaftay, iska daa oo hadda bilow inaad ku afurtid mishaari iyo protein ama ukun iyo avocado. protein waa muhiim oo yahay jirkaaga in ay hesho. so waxaan ku dhihi lahaa intaas ku afur. marka afurtid waliba afurka adoon iska badinin, hal saac kadib ama 30 daqiiqo, adiga hal saac badhe, hal saac kadib waxaa sameynaysaa 15 daqiiqo oo exercise ah. saac kadib waxaa sameynaysaa exercise. exercise-ka wuxuu yahay xaafadda ay ku sameynaysaa waa push ups-ka. exercise-da noocyadaas oo dhan yani push up hadda u baahan tahay hore aan u sameynin, muuqaal kaga hadlaa jiro, isaga intaan ku saari doonaa ama xaggan ayaan ku dhigi doonaa. so muuqaalkaas soo daawo sida push up-ka loo sameeyo haddii uu ku adag yahay, isaga ayaa ka faa'iidi doonta haddii Ilaahay yiraahdo.
marka xaafadda ku sameey push up sit up sida loo training gareeyo soonka waliba xaafadda loogu training gareeyo muuqaal ayaan idinka soo duubi doonaa haddii uu ilaahay yiraahdo marka sameysid exercise kaaga halkii saac ahay oo yaana hawlaha kala is qabsatid marka waxaa muhiim ah marka inaad cuntid handana casho quality fiican leh yaana waqti ay haysto dadka qaar waxay afuraan anaga tusaale ahaan waxay afureenay 2 saac baa isku jira afurkii suxuurta soo way kala duwanayaan hadda laakiin dib uu soo aaday maadaama waxyaadu aysan naga dhicinin si awgeed marka isku nidaam ah hadda nahay ama hal saac baan iga dameynaan dhihi karaa marka casho yar oo quality fiican leh wiligaan iska ilaali inaad hal mar is dhirjisid waayo waqti badan ay kugu qaadanaysaa in ka baxdo cuntada marka casho yar oo quality fiican leh ayaad ku afuri kartaa haddii noqoto kalluun iyo khudaar haddii noqoto digaag iyo khudaar haddii ay noqoto of course hilibka baxtaa waa cuni kartaa iyo cuntaas oo kale waa cuni kartaa sidoo kale carbiska ani waxaa isticmaalaa shucaab ahaan bisaad biyo lagu kariyay iyo broccoli-ga iyo kalluunka iyo waxaa kaloo isticmaalaa iyo spinach isticmaalaa so intaba waan isticmaalaa marka la isku yimaado la yiraahdo xaga carbs fiican aan ka helayo healthy carbs meesha ka helaa marka intaas ayaan aniga isticmaalaa xagga cashada u isticmaalaa afurkana sidaan ku sheegay waxaa u isticmaalaa proteinkaas oatmealka ama mishaarida iyo bedelkeedo marka ukunta ku diraayo sometimes labadooda isku daraa yani mishaarida waa yareeya cabir yar yani 100 gram 60 gram ka isticmaalaa kadibna waxaa isticmaalaa marka waxaa cunaa ukuntii iyo afkaadhadii isticmaalaa tusaalahaan aniga ahaan waxaa sameeyaa markaan ku afuro mishaaridii iyo proteinkii aan ku soo afuro oo maqribkii iska dukado oo xogaa yar nasado kadib exercise-kii 15 daqiiqo ahay waan rabaa inaan idin soo duubo ayaan galaa marka exercise gala oo aan ka dhamaado waxaan sameeyaa ukuntii iyo afkaadhadii aan soo qaataa dhac haddana proteinkeyga soo qastaa dam waa diyaarsanaa iska jooga xogaa yar suxuurta sidii lagu gaaraa marka suxuurtiina cuntada kale waa idin sheegaa ayaan cunaa marka waa muhiim inaad cunto caafimaad leh ku furtid waana very important marka miisaan iska dhimaysid inaad kaga faa'iideysid bishan lagu jiro maxaa yeelay bishan haddaadan kaga faa'iideysan bilaha kale ugu adkaanaysa bishan waqti yar wax la cunaa cuntada cunaysidna laga yaabay halka mar ugu horeeyay inaad dhigtid kadibna aad seexatid so chance waaye ka faa'iideyso exercise samee exercise aad u muhiim u yahay muuqaal ayaan idin soo duubi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo marka waxaan idin leeyahay waa kuma sidin dawashada muuqaalka marka waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago intaas iyo sida aniga aan u afuro iyo waxyaabaha aan aniga marka aan cuno isticmaalo sida idinkana marka dadka u baahan xagga fitnesska ay ugu dabaqaan cuntadooda waa ogahay exercise-ka muhiim u idin yahay waan idin soo sameyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo hasugu waynina waxaan idin leeyahay channel subscribe la saaro si aan u gaarno 100k dhawaan insha Allah see you next muuqaal